السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن لهانتي من ميل كسته وأن نقد داوانيسان هالكني وهم ذو وحانا هاي عبد الرحمن محرجيني أنا عارف ما ضغبت ميل كسته وأنا قد داوانيس هدي أن لا شوكتي وأد ما هتسنت هاي برنامج كي أنا شير قري صاحب بداية الصومالي اللي بجارسي وضدي بقولك كن أهابي نكوشر وح يربانا كلمن قولني يحردن هالمر هورين ورقاتية إن الدجية barta facebook haddaad iga daawanaysana folowna soo dheh soo raac waa cashirkeennii lixaad qaybtan aynu qaadanayno waa cashirkeennii ku saabsanaa buuggii xeer dhaqameedka xeer ciise dhaqanka soomaaliyeed ee nool ee sooyaalka ee heer caalami hadda noqday su-aasha isweydiinta le baa waxay tahay ninka soomaaliga ah ee caalamku falsafadiisii iyo fikirkiisii uu aqbalay ee la yiri cadaalad iyo sinaanba waa u qalmaa iyo in ummad lagu hogaamiyo ee asaguna xeer la'aanta iyo nidaam la'aanta u dhimanaya u dhamaanaya wax isdaboolaya ma aha waa mathalu alladhina yaxmiluna tawraat kamathali alximaari kuwa tawreed lagu soo dejiyay ee yaqaana ee haddana garanaya diintii kale ee xaqa ahayd aan raacaynini waxay la mid yihiin dameer kitaab lagu raray kitaab oo cilmiga ilaahay iyo macrifadiisa iyo aqoontiisa ku qoranta dameer hadii lagu raray maxay u taraysaa adiga oo odayaashaadii awooyaashaadii xilligoodii ay fakareen falsafadan la mid ka noqotay waqtigii hore ummadihii mufakiriinta ahaa ee laga dhaxlay fikirkoodii hadday saynis ka noqoto biology-ga noqoto juqraafiga iyo aqoonta dhulka noqoto waxaan dad baa ikhtiraacday oo laga dhaxlay oo rabbi uu siiyey wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan intaa yarna addoommadiisa buu alla siiyaa raggani maanta waxaynu qaadanaynaa cashirkii qaabkii xeerkan uu ku yimiday iyo habkii xeerkan loo dhigay ma meel baa la isugu yimid miyaa laga shiray ma meel lagu xoolo qashay baa lagu fakeray ma dhowr oday oo isku timid baa isla garatay ma kolba dhibka yimaada la xalliyaa la xasuusanayay waa su-aalo u baahan inaad si weyn isu weydiiso balse inta ka horeysa waxaan ku xasuusinayaa adduunka waxaynu ku darsan karnaa dee waa shuruucdan oo kale marka maanta inaguna inaan sharciyo la soo minguuriyay oo dad leeyihiin in la duruuf aan ahayn aan ku dhimanno keenina cid ku dhaqanta u laayahay waa mushkilad weyn waa hagaag cashirkeenna ayaynu gudaha u geli doonaa inagoo soo gaabinayna waxaanse marka hore raba inaan u mahadceliyo dad fara badan oo iga daawada ila dhiirigeliya su-aalo badanna i soo weydiiyey aadna ila soo xidhiidhay dadkaas oo ku nool jamhuuriyadda barakaysan ee Djibouti dabcan waxaan ogaaday xeerkan dad fara badan inay dusha ka hayaanba qodobo aan gaarin bay soo jeedinayaan oo leeyihiin saadhe halkii xaraf ee aan khaldana horey baa laga saxayaa waa arrin lagu farxo in sidaas loo garanayo waa hagaag cashirkeenna maanta waxaa weeye dhagalayda bilowgii xeerka bilowgiisii baynu maanta qaadanaynaa waana cashirkii lixaad waa hagaag xeerka dejintiisa waxaa loo soo maray dhibaatooyin fara badan oo aan la soo koobi karin muddo 50 sano ah ayaa hadba meel loo fadhiisanayay sidan buugga bilowgiisa ku sheegay 50 sano raggii wax ka bilaabay dhammaadkiisii mayna soo gaadhin qaarkood iska dareemi karaysa ninkii 50 jiray ama 60 jiray waagaas dee waa أما عمري أنا مركا ترى وسفهم كرين وإلى أرذ للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا دب اللو علينا يا من غفك وين هذا عمريو بالمرة يا أما وادنتي الله نحرس وحنا واد حلقة ودي ليه قرن كورين وقتها هذا بقى مركي يقول رئيسي الله فريست حير كان وحي هاي دابيد مدو تخشي أكتيده loona yaqiin awdal waayadii dambana saylac
baa qaadatay magacii awdal waxaana la fadhiyay 4 sannadood oo ay fadhiyeen 36 oday bal adigu 4 sano 36 oday oo geed fadhiday oo intaa fakaraysa oo dhacdooyinka dhacaya u imanayaan wax ku goynaysa oo wada kastoo suuban oo wanaagsan marinaya oo dhaqankooda islaamka ilaalinaya oo dadkoodu sidoo dad u noqon lahaa ka shaqeynaya dhaxalkoodiina waa la hayaa Soomaalida burbursan labada shay ugu waaweyn ee ka maqan waa midka ay ku badbaadeen qoomiyadda ama reerka ama qabiilkaba iska leh xeerkan yani ku soo dhaqmay Soomaali baa leh laakiin ku soo dhaqmay soo hayay soo kala dhaxlay qoomiyadda ama reerka Ciise qabiilka Ciise la yiraahdo iyo intii la nool ee la degtay arrimaha Soomaalida burburtay ka maqan waxa kamid ah dhul aan la kala lahayn in la isdilin dadku inuu simeeyaa waa saddexda loo dhintay ee loo burburay way sida daraadeed baan jeclahay dadku inay baraarugaan dhaqankoodii dib u noqdaan shuruuc way leeyihiin kooda ay qaataan kitaabka Ilaahina way haystaan haddii mid bile aadan uu fakaray loo baahan yahayna uu kitaabka ka hor imanin hadduu doonee waa kan koodi marka maxaa Talyaaniga iyo qawaacid Ingiriiska iyo Faransiis iyo gumeysiga reer Yurub iyo Ethiopia maxaa inagu qasbay aan dariska nahay maxaa inagu qasbay wax isweydiin way yaa isweydiin laakiin qofkii wax garanaya ee Soomaaliya ee qadiidu ku jirto ayuun baa fahmi karay markii xigtay waxa la fadhiistay salal oo ah dixda ceelgaal marka 60 oday baa halka fadhiisatay waxayna fadhiyeen 2 sannadood markii saddexaad waxa la fadhiistay kartataan wuxuu ahaa ceel 9 shub ah oo iminka waa boqdo durdur ah oo waxa loo yaqaan Khadar iyo Ilyas ama ceelka madow oo ku yaal inta u dhaxaysa Cabdulqaadir iyo Jiddi waxaana la fadhiyay 6 sannadood waxaana fadhiyay 60 oday 60 oday ayaa halkaas yaa fadhiday qaybta ka soo horeysana 2 sano ayay fadhiyeen 60 ka oday waxaan rabaa marka inaan ka geeyo ceelka 9 shubko muxuu yahay ceelku waa 2 qaybood qaybna xarig baa laga cabaayo dawlis iyo wadaan gadow le iyo yeel baa laga cabaa ama harag ha noqoto ama tiyub ha noqdo ama daraan bir lagu xidhay ha noqdo wuxuu doonaa ama caag ha lagu xidho dawlis baa laga cabaa xarig baa laga cabaa minna gaawa laga cabaa ama bidhaa laga cabaa saa u taqaano kal laga cabaa gaawa haday ceelku kolba intuu dheeryahay bay rakooyinka isdaba istaagaan saana gaawaha loo darayaa gacantan waa la tuurayaa gacantan baad ku qabanaysaa waad sii tuuraysaa markaad gaawaha saa u tuurto eed saa u qabanaysaa gaawo kale oo gacanta ku jiro maran baad sii daynaysaa gacanta kale gaawaha lagu qabanaya waa la sii daynayaa gaawuhu saas u wareegayaa isagoo maran buu ordayaa 9 nin buu marayaa ama 3 nin ka hooseeya intuu daro saa u sii tuurayaa marka gaawuhu ma istaagayo isagoo maran buu gudbayaa isagoo buuxiso markuu saa baxo mid kale imanaya gaawahan gaano hadduu gaabi dhaco gaboobaya gaaro geela loogu heesa ama lo'da ama adhiga kolba wix la waraabinayo marna waa shubaal oo waa 9 baac ceelku oo uu dheer yahay dawlis baa laga cabaa labada cabirba waxay ku xidhan tahay deegaanta la jooga laakiin maadaama dix aynu hadda arkayno dixiba haddaad aragto waa gacan ka dhiib 9 nin baa shubaysa weey ee ma aha kii xariga aha sida ugu badan haddana khaldanayn commentiga yaad ka arki doontaa wixii aan khaldo oo laga sixi doonaa waa hagaag boqdo durdur ana shabis iminka uma baahno intuu biyo ka fakadeen ayuu afka joogay afka laga dardarsadaa weey iyadana waa saas markii afraad waxa la fadhiistay meesha la yiraahdo Arraweyne oo u dhaxaysa Beeyaanood iyo Beeya Gurgur oo iminka ka tirsan ismaamulka Soomaalida gobolka Shineele waxa halka la fadhiyay 3 sannadood waa halka waxa inta badan laga dhigay xeerka waa halka wax inta badan xeerka wax laga dhigay way
city waa halkii xeerka lagu dhamaystiray waxayna ku taalaa ceel case ama sadiiqada dixda ee la yiraah ay shica ayay gobolka ayay galbeedka kaga toosan tahay ismaamulka Soomaalida gobolka Shineele sadiiqo waa halkii warka lagu kala helay kolka xeerka la dhigayay xuduudo ma jirin xilliga ayada xuduudda kala xidhay ma jirin gumeysina ma imanin dadkuna way isdhex yaaleen yani mid baa la ahaa waxaa halkaa la fadhiyay 2 sanadood waxaana u fadhiyay 44 oday sidaa baa loo yidhi eebbahay xugun buu iga abuuray aabahayna xeer buu ii dhigay bilowgii gogoldhigii baan maahmaahadan ama tiraabtan baan khalday waa la saxay commentiga la igu saxay rag yaqaan oo dusha ka yaqaan baa meesha jooga naga daawada aad bay u mahadsan yihiin marka eebbahay xugun buu iga abuuray dee xugun xabba la iska abuuray randhuf خلقناكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة sidaas way aabahayna xeer buu iga tagay kaan ku dhaqmi lahaa isku ilaalin lahaa dadkana kula dhaqmi lahaa ku kala nabadgeli lahay bay'adeydii iyo dadkayga nafteydii maalkayga ku ilaashan lahaa hadduu khilaaf yimaado dhibdhacana lagu xalin lahaa weeyaan xikmadda halka ku jirta waa hagaag haddaba waad u jeedaa dhibaatada loo soo maray inuusan dhayal uusan ku imanin waxaan hubaa falsafadooyinka qaarkood waa laga yaabaa inay ka dhibadan yihiin sida nalka baxaya maanta waxaa la yidhi 999 jeer markuu daari waayay ninkii mufakirka ka ahaa iyo markii 1000 la marayay bay u daaranta ilaa yawmina hada hadda idin la hadlayo nal baa igu baxaya adiga i daawanayana nal baa kugu baxaya fahmaysa sidaa daraadeed inaana ciyaar iyo dhayal lagu imanin dunida waxyaabaa laga faa'iideysanayo baad dareemi karaysaa awgeedeen way dadaaleen laakiin dadkii ka dambeeyay ayaanan meel laba ka soo qaadin waa ku mahadsan yihiin deegaamada ciise dogo ee lagaga dhaqmay axdigan ee wadan ogolka ka ahaa halkaas wuxuuna badbaadiyay dhulkoodii iyo dadkoodii iyo magacoodii Soomaalida wali mayna dhaadhicin meel kasta oo Soomaaliyada kale kaga nooshahay waxaad ogaataa inaanan deegaamadaas lagaga dhaqmay axdigaas awgeedeen ka tageen ee dunidu maanta ictiraaftay inuu yahay nidaam dad lagu dhaqi karayo waxaad ogaataa deegaamadaas inaanan la kala lahayn waxaad ogaataa deegaamadaas inaadan ku dhex baahanaynin waxaad ogaataa deegaamadaas inaan lagu dulmaynin waxaad ogaataa deegaamadaas inaan laga baqaynin intii la isku duulo subax in la isgalo xabad la isla dhaco ama xoolo la iska dhaco waxaad ogaataa deegaamadaas inaanan laandheere iyo laangaab midna la ahayn ee Soomaaliya ilaahay baan idinkugu dhaariyay maxaa inaga halaabi lahaa haddaynu sidii awooyadeen u keeneen u qaadan lahayn u dhaqan gelin lahayn kuweenii hore hadday il duufeen oo kuweenii dhexe ay hilmaameen kuwa maanta jooga maxaa u diidan inta ay xeerar iyo qawaaniin kale ay ummado kale ka soo minguurinayaan ee kolba meel ay research u aadayaan kooda ku dhisan dhulkooda ee meesha lagu alifay magaca dhulkooda ta ee wuxuu ka hadlaya dhulkooda ta ee wuxuu ka hadlaya dadkoodii tahay beecadoodii tahay dhaqankoodii diintoodii aqoontoodii tahay in ay qaataan maxaa u diiday burburka in haystay kamid tahay waa inaynu baraarugno waana sababtan casharada ula jeedno qaybtii lixaad weeye la soco qaybta 7 intaynu isugu iman doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh